السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaaliya meel kasta joogtaan waxaan idin waxaad naxdinteeda wadataa waa ubad Soomaaliyeed oo maanta hooyadood ku tuurtay jarmalka aabahoodna uu sido laakiin aanu ku qornayn uu kana warwarsan yahay inay dowladdu kala wareegto muuqaalkii markaa ku hadlay baan halkan ku hayaa uu leeyahay in la caawiyo u baahanahay qof jarmalka muddo deganaa baan u caawinahay ayaan u baahanahay caawiya qof caruurtan haya oo lagu soo qoraan u baahanahay maadaama ninkuna aanu ku qornayn gabadhina ay tuurto laga yaabo inay dowladdu ay ka qaadato dhammaan waxaan idinka codsanayaa Soomaaliya meel kasta aad joogtaa inaad barnaamijkan inaad arrintan share gareysaan la wadaagtaan Soomaalida kale si ilaahay ay gaarayso cid arrintan wax ka qaban karta oo arrintan gacmaha ula geli karta oo arrintan ama labadii qofba garanaysa gabadhii iyo ninkaba garanaya oo arrintan toos ula xiriira waalidka caruurta dhalay oo yiraahdo waxaas ku haysan waa meeshii horta caruurtan muhiimad waa caruurta saddex ama idinku islaaya ama kala taga waxaas muhiimad ma leh laakiin caruurtan in salka meel loo dhigo waa muhiim inta aanay gaalada la wareegin kuwii aabahood iyo hooyadood haysteen guryaha la joogeen ayaaba qaati taagan oo la qaadanaya waxaan u maleynaysaan kuwo hooyadiina halka ku daadisay aabihiina aanu ku qornayn oo aanu meesha dibaba soo geli karo aabuhu mar haddaan ku qornayn ma soo geli karo muhiimaddu waxay noqonaysaa in horta isaga dhiig la DNA laga qaado maxkamad dacwad ay gasho muddo dheer ay qaato laakiin ma noqonayso in lagu yiraahdo hooyad miyaa daadsaha adigu adaa ka mas'uula ma noqonayso waayo kuma qorna haddii aan ku qornayn aabuhu haddii aan ku qornayn ubadka haddaan ku qornayn oo kaarkiisa marka la qaado aan laga arkayn waxa uu qaban kara maaha waxay ka dhigan tahay qof kasta oo Soomaaliyeed oo yiraahdo ubadkaana anigu haddaan ahaa anaa dhalay isaga waa u simana mar haddaan ku qornayn oo aan meeshii qoraal ahaan aan cadeynayn adduunka wax kasta qoraal baa kaasa haddaan qoraal ku cadeynayn ma imanayso haddii kale wuxuu noqonaysaa dacwad muddo dheer maxkamad hawsha inay gasho kadib markaas laga soo jawaabayaa muddo dheer bay qaanaysaa intaas oo dhan laakiin gaaraad ku sahanaysaa caruurta gacanta laakiin waxaan rabnaa in muuqaalkan uu gaaro dad badan oo Soomaaliyeed oo ku nool siiba adduunka ku nool siiba jarmalka dadka ku nool si ay u gaadho muhiimaddu waa dadkaas wax ka qaban kara ee gacanta uga tagi kara ee dadkii la kulmi kara ee isugu yeeri kara ee haddii doonaan heshiisiin kara balse wixii ha dambeeyaan caruurtan baanu rabnaa in aad ku heshiisaan hayntooda in ama ninka lagu wareejiyo gabadha hadday tahay ninka ku wareejiya caruurtii waa lagu wareejinaya qasab haddii ay markaa uu yiraahdo ay tahay anaa haysanayna waa meesheeda bal waxaas la eegi doonaa intaan hadalyaada ku daalina horta muuqaalka ninku soo duubay uu leeyahay in la caawiyaan rabaa isla eegina سؤال محمد أدي أتبع الإسلام يا عيال كيرك وقحة بدن ما شاء الله وحوي قبل الشيء وتوفتي هاتوا طمحهم قبل الشيء وحكسي ترى تاج وحوي غير كودي يعد كذا على تمام لا حريري قدمنا حيوي هذين الوجه واجن وقبل إذا وصلت أنا وحن يعني waxaan la hadlay reerkoodii cid ay ka dhalatay waxa ay wadahan gabadha waad furtay aad furt hal gabadha hadii dadku waa isfuri karaa laakiin muhiimaddu maaha in caruurta hadii gabadha ay furtay caruurta inay daadso dadka hadii Soomaaliya joogaan dadkaas waxa ay ka ogyiin ma laha muhiimadda adiga iyo xaaska labadiina caruurta isku dhalay ayaa muhiimadda leh ina arrinta ka wada hadashaan laakiin reerkii waxba kama ogaan kaadeen ahaan caruurtii waxa oran karaa qof Soomaaliya jooga caruurtii gabadha ka tagtay way daadsan adoo gacanta ku haysaa warwa ma sha Allah gacanta ku hayso wax kale kama ogaadin muhiimadda fiidiyogu waxa weeye hadaba in ninkii wuxuu sheegay iyagoo labadooduba khalad ku jira ubadkii uu hal wad yahay cid ala cid gacanta ku haysa aan jirin isagu mas'uul u noqon karin iyaduna aan mas'uul u noqon karin ay kala tagtay haddana muhiimaddu waxay tahay in uu yiri waxaan codsanayaa dhammaan Soomaalida ku nool Jarmalka in ay fiidiyogan faafiso ina gaarsiiso ilaa intaan helayo qof caawin kara oo hayn kara caruurtan waa hadii isaga looma ogola sax isaga looma ogola maadaama aanu ku qornayn cidna soo dhiibmayso caruurta
saa iyagu u dhiibayaan u fudud gaalo uma dhiibto laakiin gaaladu waxay ka doonaysaa caddayn waraaqo dhiig in laga qaado in la beryo dhan maxkamad gasho balaayo dhan iyaga gabadhii daalac loo raaco isagii daalac arrintu adagta laakiin haddii ilmahaas qof Soomaali ah gacanta ku dhigo warwarkeedu waa inaga dhacaya laakiin muhiimaddu waxa weeye ilmaha in qof Soomaali gacanta ku dhigo isaguna taasoo imika inaga codsanaya baan dhageysano joogtaan aynu hadhalisanada videogan si share meel kasta joogtaan waxa weeye mataqaana meel kastana galiya Facebook iyo YouTube dhinac kasta galiya waxaan ka codsanayaa aan maadaama aan dalka Jarmalka joogo ma aqaanin familiyo micnihii sharci haysta ma aqaanin aan familiyo sharci haysta oo dad waaweyn oo sharci haysta hadii aad garanaysaan Maxamed Caadi Farisaabo haddii aad garanaysaan ugu soo xira hayla soo xiriireen si ay haddayba noqoto lacala dhacdo in micnihii la yiraahdo war ciyaalka haduu kugu qortna waa la qaadanayaa si ay ayagu aan ugu wareejiyo taas ayaan idinka codsanayaa aan waan islaamaya su'aal weyn meel kasta joogtaan ayadno waxa weeye maadaama wuxuu ka hadlay isagu hadiiba uu dareensan yahay hadiiba laga yaabaa in la yiraahdo caruurtii adigu kuma qorin ma haysan kartid markan hadii laga yaabo hadii saa la dhaho waa in aan hayo qof caruurtii iga haya intaas qof Soomaali inta caruurtii haya inaan helo ayaa fiican marka ila soo xiriira ay taagan waxa weeye mataqaanaa unusoo duceeyo ciyaalkaas marka waxaa nasiib unusoo duceeyo ciyaalkaas waa u duceeyna adeero abtiyo إن شاء الله إلهي إذا المتصو إلهي إذا المتصو صومالي دمانتنا وسو دعية المهاير إلهي دمانتو عام تصن إلهي قال أنت أقرين والد كودنا وقدقو والد أود كود وفرفران وتشتبان كورين كوديو دقن كودي أنت بك قيب كلا بل فيديو بقى قيب لو قيبتي هورو أنت كنت قيب لبعضنا وضوي لو قيبت لبعضنا إنه سيدي جسنو ayaga dhalay ay ku anducotay hadaba waxa weeye mataqaanaa nasiib darradu yani anigu maanta la yaabanahay maaha gabadha waxa weeye nasiib darradu markii aan qoyskooda iyo reerkooda la hadlay waxay igu jawaabeen warniyow gabadha waad furtay war haddaan furay anigu waan reerkii la isku soo celiya ma wado aan mana u baahni aan laakiin muhiimadu waxa weeye ciyaalka ay dhashay ay haysato ay sanayn hadii ay tuuraso tii abooda ku qorto iyana micnihii gaari gacanta way gelinaya taas way iska inda saabeen hortay yani waalidkeedna wuu ku raacay reerkoodii dhan baa ku raacayda taa reerkooda waanay ka soo hadlay yani muhiimaddu waxa weeye ta waalidkeed iyo reerkoodu waxa laga yaabaa inay wadankiiba joogaan waxba kama ogaba waxa laga yaabaa inay isleeyihiin dee soo aabahood ma haysto carruurta haddii hooyooda soo aabahood ma haysto taas way adag tahay laakiin tan muhiimadda ahi waxa weeye in caruurtan aanay horta iyagu ay dayacaan mid wuxuu sheegay gabadha inay uur lahayd ilmo kalena ay daadihinaysay oo waday oo ay nin kale u dhashay ay u dhashay marka labadaa qudhooduna dee waxa weeye waa qofkii daalaca imka dembi bay gashayba caruurteedii ay dhashay baana meel ku ogeyn 48 saacadood baan laga soo wareegay ninkan inuu dhalay may sheegto mar hore yani inay tuurtay ka dhigan tahay markaa kuwaasuna ay wadatay jiidanayso kaa ay jiidanayso iyo kaa urka kusii daaba labaduna iyaguna khatar bay ku sugan yihiin sugo labada tana la qaato ayuu badantay aaba iga dahaayeen hadda يعني عاد بنسي مدوم نيس الله بهبين هذا عاد وباين الصيحن والله ما ينصيحن هبينتي هذا تيرتا maalintii ma ooyeyso ay waa caadi laakiin habeenkii oo dhan way soo kacaysaa oo 20 jeer bay kacaysaa maamay ku yani hadaaqayaan laakiin anigu sidee ugu sheegaade sidee ku dhahaa maamadii waan tuurtay bal yani sideen u fahansiiyay yani ciyaal wax weeye luuqadooda ay yaqaanaan way iska fahmi doonaan dabcan laakiin maanta taasoo dhan meesha ma taalo waa leyntu taas ayaan idinka codsanayaa ciyaalku runtii oo hadalkaasaan maamay bay leeyihiin ciyaalku laakiin
maamadood inay tuurtay waxba kama ogaa inay maamadood tuurtay waxba kama ogaa inay soo socoto bay moodayaan laakiin see ula hadlaa buu taagan yahay dadka jarmalka joogo ma aqaanin faamiliyo micnihii sharci haysta ma aqaani aan faamiliyo sharci haysta oo dad waaweyn oo sharci haysta haddii aad garanaysaan maxamed caadi fariisaabo haddii aad garanaysaan ugu soo xira hayla soo xiriireen si ay haddayba noqoto lacala dhacdo in micnihii la yiraahdo war ciyaalka haddii kugu qortna waa la qaadanayaa si ay ayagu aan ugu wareejiyo la soco war gabadhii micnihii ciyaalkaagina hadda ciyaalkaagii reerkoodan uu ku dhegan yahay idinka carruurta labadiina isla dhalay hortay labadiinu maadaama ay isla dhasheen muhiimaddu waxay ahayd markii horeba inaad ka fikirtaan war carruurtan maxaa u dhasheen se u dhasheen maxaa haddii aad dhasheen ubadkan yaa mas-uulka ah haddii ay tiri haygu qorin markaa inaad ka hadashaheed waa tirahdo aabaheedii hooyadii reerkooda la hadasha tirahdo gabadhii carruurtii haygu magacaaga ha ku qorin bay igu dhaha ya si ay imika maanta ay kugu fiicnaato oo maanta maadaama maanta intii horeba dad ka yeeshay oo aygu qorin ay kugu tiri aad ka yeeshay hadda reerkii waxba kama ogeyn miyaa ogeyseen reerka inaadan ku qornayn carruurtu inaadan isku qornayn miyaa ogeyseen maydaan ogeysiin sidee bay maanta hadday xukli haddaad haysataan haddii iyada haysato somaydaa kala tegin haa dee weligood baa laafteeda carruur aabahooda haysto iyo carruurdee ay hooyooda haysato marka taas maaha wax idin noqonaysa arrin laakiin waxa weye carruurtaas markii horeba waa dayacdeen cidlay carruurtaasi joogeen ilaahay kuwa warooranta waxa weeye laamiga isdhigo yani ma taqaana ishagaysa yani aduu ishallee yani anigu waan ku ilaalinaya ilaahay kuwa warooran kolba ciyaalka haddii maanta la qaato hooyadooda baa tuurtay nahaysana waan ka kari waayey igu qorna waan ka kari waayey waan islaamayaa meel kastoo joogtaan